Assalaamu calaykum masaabta antikaa ku xiran barteena YouTube Telegramka waxaan ugu Shafi Daawud sidaa hore idinka balqaad waxaan idin dhahay waxaa soo duubaya account 3k ku bilaabnay 6k gaarsiiyay in 1 month hal bil ayaa ku gaarsiinay waxaa jira muuqaal ka duubo weekendiga markuu ahaa hadda maanta waxaa la marayaa Arbaco waabo waxaa jira muuqaal ay suuqan u furan yahay waa maalintii maxaa la lahaa saddexaad marka weekendigi muuqaal ka duuba jiro markaasna akoonkii wuxuu marayay 3k to 6k wahay balse laakiin 1 month iyo markaas ahay balse laga jirta akoonkii waxaa ku darnay saddexda maalin oo suuqaad furnay 1k ayaa ku darabo adeerta marka akoonkii idin geeyo hadda waxaad arkaysiin akoonka wuxuu marayaa 4,200 $200 ayuu marayaa 4,200 akoonkani 3k to 7k ayaa waxa ku gaarsiinay 1 month wax walbana waa idin tusi doonaabo maxaa la akoonka xilliga la deposit gareeyay lacagta lagu shubay taariikhda lagu shubay sidoo kale maxaa la lahaa isbuuc walba faa'iidada la sameeyo withdrawgi wixii oo dhan muuqaalkan waxa uu duubayaa waxay tahay in ay idin noqoto dhiirigelin maxaa la lahaa sidoo kale aad sameey kartid adeerta anigu waxba riski aanan gelinin waxa ku sameeyay 3k to 7k waliba loo iska astaan aad ay u yar yihiinbo adeerta marka geey historyga hadda waa kana today tradeidana hadda u jeedid waxa galay jimcadii ayaa galay oo suuqo xirmanay hadda marka taariikhda ku soo kaleeta maxaa la lahaa saad wax walbo indhaha uga aragtid waa kana waa 10ka bisha 8aad baa galay tradeida waxaana xiray 10ka bisha 13aad waxa ku jiro waa 5 maalin marka laga reebo weekendiga suuqa uu xirnaaba ka reeb marka kale waxay noqonaysaa 3 days ayay noqonaysaa sidoo kale akoonada kale hadda marka ku dhufatid waaba ka ayadana waa 10ka bisha 8aad tradeida dhan waxa galay 10ka bisha 8aad ayaa galabo marka maxaa la lahaa lotiska ku galana waa kuwaas u jeedaabo waa 0.10 sidoo kale waxa u jeedaa faa'iidada laga xirtay faa'iidada lotiskana way kala badan yihiin oo maxaa la waa small lot more profit mar walbo waxa aragtiina soo qor small lot more profit adeerta waxa ku galay 0.10 ku galay tusaale ahaan oo kale hadda midkaan 0.10 ku galay oo $1 waxaana ku xirtay 161 bibs midkaan sidoo kale 170 bibs iyo maxaa la 60 bib 170 bib u jeedaabo mid walba waa 100 bib mid ugu yar marka waxa u jeedaa in la duwan loo isticmaalinbo waxaana had faa'iidana ku sameeyay 3 days ay ku sameeyay hadda suuqa oo furnay sidoo kale marka history idin geeyo isbuuc adeertaan la soo dhaafay faa'iidada la sameeyay hadda marka custom period ku dhufano ageena taariikhda dib u celino isbuuc hore ka dhigno waa kana hadeerta isbuuci hore hadeerta kuna ku darnay sidoo kale iyo kunka hadeerta saddexda maalin ku darnay ayuu kor ku soo qor profit waa 2,157 marka hoos u baxdidna waa kana faa'iidada la sameeyay iyo lotiskii ku galay waxa dhan meesha ka arkaysaabo sidoo kale withdrawgi la sameeyay waa kana saad u faahantid withdrawgan ayaa la sameeyay withdrawgi la sameeyay waay marka waxaan u jeedaa faa'iidadii wixii la sameeyay intaan hadeertan waxa waa 3 dayskii tradeida qaadano waxaas ka koreeyana waa isbuuci hore faa'iidadii la sameeyay waa isbuuci hore faa'iidadii la sameeyay marka saadan ugu wareerin waxa idin geenayaa akoonkan xilliga la deposit gareeyay 3,000 si aad wax walba u faahantid waxa la deposit gareeyay September 12keedii adeertaan waxa la marayaabo October 14keedii ayaa la marayaa marka
waa hal bil camal waa hal bil kasoo wareegatay oo 2 maalin aan wax soo saaray marka September 12keedii waa xilliga la deposit gareeyay lacagta waa kana hadda markaa geeyay saa wax walba u faahantid hadda qaybta sare waxa ka arkaysaa bishaas dhan faa'iidada la sameeyay waa $4,420 lacagtaas sidee ku soo baxday waa ku tusayaa baad yartaa markaas aadan ugu wareerin hoos markaad u soo baxday inta waxa ugu jeedaa xilliga lacagta la deposit gareeyay waa $1,500 ayaa lagu shubay taariikhda markay 9 bisha 12aad sidoo kale taariikhda markay ahayd maxaa la 9 bisha 13aad ayana waxa la deposit gareeyay $1,500 maxaa la September 12keedii $1,500 lagu shubay September 13keedii $1,500 ayaa lagu shubay sidoo kale lacagtana u jeedid waa credit waayo oo broker ko bixi iska daa sidoo kale midan waa sidoo kale waa credit balse laakiin waxa u jeedaa in lacagtan la deposit gareeyay sidoo kale tan lacagtan la deposit gareeyay sidaasna waxay isku noqonaysaa $3,000 kadib hadda markaa hoos u baaxdid maxaan laba kana isbuucii koowaad khasaaraha la galay waa kana sida u jeedid ka arkoosid isbuucii koowaad khasaaraha la galay kadibna waa kana recovery-gaana sameeyay oo goolli waa isla goolli bis kadib markaa hoos u sii baaxdid waxa uu sharxayaa si aad wax walba u faahantid waadna sameey kartaa waa kana isbuucii koowaad markuu suuqii ugu xumaa waxa sameeyay faa'iido khasaaraha sameeyay isbuucii labaadna waa kana faa'iidada sameeyay waa kana loodka isticmaala wax walba u jeedaa waad 0.4 waxa ku galay 20 ku galay waxaana ka qabtay ugu yaraan 120 bib maxaa la 0.05 isticmaalay 150 bibis ay ka qabtay waa ku dhawaad waa 300 bibis waabo 0.05 isticmaal $160 ka qabtay waa lood yar iyo maxaa la bibis badan waabo sidoo kale waa kana faa'iidada si sameeyay 0.5 oo 157 ka bixiyay marka waa kana withdraw ugu horeeyay la sameeyay saa u faahantid waa kana withdraw ugu horeeyay la sameeyay taariikhda la sameeyay waxa waa September 27deedii waxaan withdraw la sameeyay waxaan la deposit gareeyay ku dhaaf September 12keedii $3,000 la deposit gareeyay withdraw ugu horeeyay waxa la sameeyay September 27deedii waa $1,200 withdraw ayaa la sameeyay lacagtan kore iska daa waxa waa credit-ka markii withdrawgii la sameeyay ayuu broker credit-ka cishtay bonus-ki ahaa marka withdrawgii la sameeyay waa $1,200 waa iga heesaa marka waa sii socotay isbuucii ku xigay waa kana asne faa'iidadii la sameeyay waa kana gool sala ugu faa'iideysto walodka ugu galo u jeedaa faa'iidadii la sameeyay marka hoos sii baxdid asna waa kana withdrawgii la sameeyay isbuucii labaad withdrawgii la sameeyay waa kana waxa $1,000 la sameeyay taariikhdana waxay ahayd September 30keeda ayaa la sameeyay laba isbuuc ayaa withdraw la sameeyay laba isbuucna waa $1,200 iyo $1,000 ayaa la sameeyay marka isku daro waxay noqonaysaa $2,200 kadib marka aadna sii socotid isbuucii kalena waa kana faa'iidadii la sameeyay isbuucii kale waa kana goolli faa'iidadii laga sameeyay lacagtana gala euro kaade balse laakiin iska xirabo waa iska xiray marka waxa jeedaa goolli faa'iidadii laga sameeyay ujeedaba marka waa kana withdrawgii la sameeyay waa kana withdrawgii la sameeyay waxa ujeedaa goolli faa'iidadii laga sameeyay marka withdrawgii la sameeyay waa 3 isbuuc oo withdraw la sameeyay oo ah 3,000 isaas waxa ku noqonaysaa $200 isbuucii cadeerta ugu dambeeyayna waa kana maxaa la lahaa waa kana wili ma uusan dhamaanin faa'iidada la sameeyay waa ka
wilaad suuqu furaya 2 days ayaa harta faa'iido la sameeyay waa kana waa $1,000 $1,200 $1,220 waa waliba marka sidaas waxay ku noqonaysaa $4,420 ay sidaas ku noqonaysaa marka waa kana hadda marka kor kuugu soo laabto waxa ku sharaxay maanta dhan waa ka profitka bishaas la sameeyay waa ka soo faantid waa $4,420 marka sidaas marka waxay ku noqonaysaa waa 3k to 7k in 1 month waan sameey kartaabo muuqaalkan maxaa lahaa waxa uu duu waxay tahay in akugu dhiirigeliyo marka waan sameey kartaabo waa awoodaa midaasi lacagta ka sameeyeen waa golli waa idin la wadaagaabo mar walba soo kale waxa la socotiinba 3 isbuuc ee ugu dambeeyay faa'iidadan aan sameeyay dhan golli ka sameeyay waa idin la wadaagay hadii ahaale trade idea soo kale signal soo diro sidoo kale maxaan la muuqaal ka diyaariyaa barteena youtube ka soo galiyo had isbuucad ugu dambeeyay faa'iidadan hadda sameeyay gold waan idin kula wadaago barta youtube ka waa soo dhigay muuqaalkii la hadda waa u yaalaa waa daawa kartaa waxaan idin golli still buy waa fursad buy isbuucan ka raad wali ay taa continuation button ayuu sameeysto oo ascending triangle ayuu sameeysto waa idin ku sharaxaa meesha oo suuqa taa waxaan idin markuu furmo golli sell ilaa iyo 150 inuu daato hoos yar kadib uu kor soo aado ama toos inuu kor u aado ayaa idin dhahabo marka goldina kor waa uu aado maanta uu dhaqaaqay shalana uu dhaqaaqay ilaa iyo 300 bib ayuu kor aado golli targetka taa karamna waa u dhaafay marka ana trade-dan waxa ku jira jimcadii ayaa ku jiray uu kula xirmaday waa haayabo mana xirinbo markuu xitaa saniinta oo furmaday holiday ayuu ku jiro ma xirin gollino kor oo aadi ayaa iska daba laalaabanay waa haay marka dulqaadkana waa muhiim trade-ka waa inaa holiday garay kartaa marka waa ka akoonkii waa u jeedinbo wax walbana waa idin kala wadaagay waana maasati